Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu. Maanta waxaan fiirinaynaa sidee coin graph loola socdaa hoos suuqa lacagaha ka baxayaan iyo kuwa mataqaanaa liquidation ku dhacay kuwa mataqaanaa hadda soo galay see lagu ogaadaa. Marka haddaad future-ka tirigelinaysid tan waa muhiim. Marka sidee loogu ogaadaa exchange-yada long iyo short ku kalaanay sidee mataqaanaa loo fiiriyo. Xagga hadda haddaan fiirino waa ka short iyo long waxaa hadda maxi waxay hadda liquidation samaysay waa 6 milyan oo intaa ku samaysay volume marka hadda soo fiirisid xaggaan laga soo dhaqaaqa maxi marka sidee loo fiiriyaa long iyo short 24 saac dhameysay 1 day way waa ori markaan soo fiirino 4 hawe haddaan dhameeyo waa 1 hour waa ka inta ka fiirnay marka haddaad trader tahay marka waxaan fiirinaa liquidation-ka oo dhacay hadda waxaa weeye BTC waa 90 milyan Ethereum 79 milyan oo exchange-yada ku jiraan waa kan exchange all Binance ku jirta long short intii soo horjeedaan wax arkaysa marka sidee loo ogaadaa marka haddaad soo fiirisid candle-ka waa halkan waa meesha ortaan ay u gaaray xaggaan ka fiirinaysaa 79 milyan 747 milyan waay 1 day markaan fiirino maanta intaas waa 97,000 oo kun oo soo gashay volume May ilaa hadda laga bilaabo id markaas laga daawo Binance exchange marka hadda fiirino xagga exchange-ka san oo waa arkaysa oo lacagtiisa haysto oo kugu jiro suuq waa arkaysa dhex taalo marka waxaan fiirinaysaa marka habka cryptocurrency volume liquidation-ka maad way weydiinayaan password long marka anaga ma rabno password inaan ku sameyno hadda kaliya waxaan ka fiirinaynaa waa hyper liquidation oo markaas soo fiirisid halkaan gaartay marka jaartay haddaad fiirisid sawirka red waa position future red waa ka markaas soo fiirisid oo future waa ka haddaad soo fiirisid waa ka kuwii hoos loo aaday oo kor loo aaday bishii October adii jaartay ani kuma aragtin oo hyper hadda waa interest rate waay oo la jaray oo wixii dul saarnaa oo wada saaray BTC option future waxaa la diray 34.49% Ethereum future 29 waa 20% bered had meesha maraya Barcelona 87 liquidation-ka traders marka haddaan fiirinaynaa market cap-ka Ethereum waxaa weeye 78 milyan waay 1 day 30 haddii aan fiirino 334 sol XRP waa 19 sol waa 26
coin TRC eber zero hyper 78 Cardano hal BTC cash waa 9 waa 0 kan 0 10 sui waa afartan iyo toddoba laab baad u arkaysaa sida loo gareeyay 24 saacadood u dambeysay horta maxay u gaaray halkaas BTC marka sidee order loo fiiriyaa liquidation model 3 aan fiirinaynaa waa Bavaria Future Sport Petroleum inta soo gashay waa kuwan Bavaria Sport Petroleum 9 BTC kaa soo gashay intaas inta soo gashay petroleum-ka oo raadka la jaraya marka waa fi waxaan sameeyaan raadina liquidation-ka markuu dhacayo sidee loo ogaadaa inta accidentally loan ku jirta waa kuwan Coinex waxa ku jirta loanka waxa isu soo horjeeda maanta ma arko haddii marka soo fiirisay accidentally dhamaantood loan ku jiraan taas Germany hadhow waa arkaysaa in 1 second oo liquidation lagu sameeyo hadda 4 hour aan joognaa 1 hour oo kale markaan fiirino waa kuwan saacadihii la galay waa arkaysaa loanka dhamaantood loanka waaye total liquidation waxa la sameeyay hadda 1 hour u dambeeyay 22 bilyan short intaan la sameeyay haddaa rabto waa sii dhiba kartaa accidentkii sameeyay waa hadda tan waaye tanaa sameysay oo intii mataqaanaa gashay marka hadda waa dabay kartaa waa rey kartaa total liquidation soo wax ka dhacdo waa ka haddii 24 saac 4 hour markaan fiirino isbedelaya 12 u dambeeyay saacado u dambeeyay waa isbedelaya 4 hour 1 hour markaas aad fiirisid liquidation wixii dhacay waa ka loanku ku jira 29 milyan short 8 milyan oo suuqa laga saaray traders marka dadka maaha investor waa dadka traders oo future ku trade gareeyo oo intaas lacag laga saariya oo haddii kor u galaan hoos loo gala haddii hoos u galaan kor loo galaa marka total liquidation sidee u ogaataa waa kuwan marka soo aad fiirinaysa inaad trade inaad gaartid inaad iska fiirido waa ka levelada liquidation-ka waa minid waxay dhaca waa arkaysaa oo jaartigiis kan waaye
high leverage level xagana ka fiirinaysaa bt 87 hadda bt san joogno ayna kuwan rabtid waxaa ka fiirinaysaa xagga oo ku qornaysaa coinka aad rabtid hadda solo kale haddaan qorno virtual Binance Sol haddaan fiirino low leverage risk lending oo caadi marka medium high waa high leverage 15 minute wixii dhahay 1 second waa arkaysaa xagga jaartii waa ka marka applicationkan waa website waa coin class lahaa yaala hadaad aan garanaynin wax qoraysaa google-ka haddaad rabtid inaad ka fiirisid wax qoraysaa coin class dhahaysaa wax qoraysaa isaga aadi ku geynaya waa arkaysaa waxaa laga fiiriyaa traders saas ku soo baxay websites waa ka coin class lahaa hadaad fiirisid dhaaf ku siinaysaa baadi toos soo baxaya marka anaa hadda waa noo furan yahay saas dhahayna mar hadna inaan fiirino marka haa kala socda way jaartiya 1 minute waa 5 second to waa virtual oo leverage high leverage medium leverage low leverage lane marka saas oo fiirinaysaa marka haddaad rabtid inaad trade iska fiiriso kow waa muhiim asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu marka casharkana maanta waxaa kugu egay insha allahu tacaala haddaad video ka heshid like saar subscribe saar comment waa muhiim waa noo muhiim wixii mataqaanaa oo waa la wadaagi kartaan oo fursadaha casharkana maanta waxaa kugu egay insha allahu tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu